garsoore Axmed Cali Jimcaale ayaa waqtigan seeriga ka dhawaajiyay jaamacadda SIU ayaa baaska koowaad ee qaybta koowaad ee ciyaarta sameysay anigoo Xuseen Maxamed Hadaafo ayaa kulan ciyaareedkan tibin doona daawadayaal ayub ya salaam si qurux badan ayuu doomariyay laacibka lagu magacaabo Ayub Maxamed waa ciyaaryahankan haddaan ku sheego waa mid kamid ah ciyaartooyda lafdhabarku ah jaamacadda Himilo ya salaam xasan saaxiibkiisa ya salaam oo ku jirta ya salaam si qurux badan ayuu doomariyay mar kale laacibka lagu magacaabo Ayub Maxamed laba gool iyo waxba ayuu ciyaarto karigay ya salaam Saadiq John يا سلام سقروع بنا يودومري لاعب كلهم عاو صادق جون لبا جولي كولا يونو عيار توكريجي لاعب كلهم برك السجالات جامعة SIU لاعب كلهم عاو صادق جون حسن عجي عبد الرحمن صدع كولا يو عيار توكريجي الكابتن عبد الرحمن كوباتيك صوّد شغين عبد الرحمن يا حسن عجي قدام بنتينا وعاش بغد جاري الكابتن عبد الرحمن قرب كالا يسور غاقي بناك الصري يا سلام waa ku jirtaa runtii si fiican loo doomariyay ciyaaryahan Xuseen runtii diiday ciyaaryahan Xuseen runtii soo carooday waa la soo guddi kubadii fursad fiican ya salaam waa ku jirtaa runtii si fiican runtii 4-2 ciyaarto karigay golayaha jaamacadda SIU waa awoodi waa kubadaasino labada gacmood oo ku qabsado hasaate si dirqile ay kaga baxsatay 4-2 ay ciyaartay mareysa jaamacadda Himilo ayaa korkacisa SIU lagu leeyahay ya salaam Saadiq John ayaa ciyaarta karigay 3-4 yariyaan galambarka sagaalaad ka soo goolkiisa labaad dhalinaya laacibka lagu magacaabo Saadiq John Abdurrahman ya salaam waa ku jirtaa runtii super hat-trick ciyaaryahanka lagu magacaabo Ayub Maxamed il Joko Finito jaamacadda Himilo ayaana 5 gool iyo 3 gool gulkay gaartay dhankooda SIU